maayarka degmada Burco Ustaad Maxamed Yuusuf Cabdiraxmaan Muraad oo maanta wareysi gaar ah siiyay TV-ga caalamiga waa bari ayaa ka hadlay xaaladda abaareed ee ka taagan guud ahaan dalka gaar ahaan gobolka Togdheer isagoo isdul taagay in maanta biyo la'aan baan soo food saartay dadka abaaruhu ku leeday una xarka xirkeen gurmadka abaaraha waxaanu maayarku sheegay horta afiyadin baa ku darsan wax walba annagaaba de hindisaaba lahaynba barnaamijkan dawladda iyo gudida abaaraha iyo ummadda reer Soomaaliland ba annaga ku soo jeedinay waliba kama yaraan fikradda aniga lahaa in maartay dadkan loo gurmado waxa imka isku xidhna aad arkayso ee dawlad leh ee shicib leh ee gudi abaaraad leh waxa fikraddii anigu aan maartay de fikreeyay insan loo dhigo waxa kale oo anagu ka shaqeynaa de waanu caawinay dadka mar baan raashin ku caawinay biyahana booyadaan leeno maalin walba biyo waan dhaamin maalin saaka u dambeysay waa maqan tahay laba booyadood baan lahayn midimka way jabto halkan ay ku jirtaa tii kale maalin walba habeen iyo maalinba dadkan u dhaamin hadda waxaan Hargeysa ka dalbanay booyad weyn oo iyaduna 75 foosto qaadaysa yani imika ka dalbanay Hargeysa oo iyadana aan ugu talagalay inaan kaga qayb qaadano abaaraha biyaha imka ugu daran dadku imika waxay u dhimanayaan waa haraad waa biyo la'aan 158 tuula biyo la oo gobolka Togdheer ka tirsan maayarka ayaa sidoo kale ka hadlay horumar ballaaran oo ka muuqda magaalada Burco iyo waxqabadka muddadii uu talada golaha deegaanka haneeday isagoo carabka ku dhuftay waxyaabaha ay ku kala duwan yihiin golihii deegaanka ee beddelka u noqdeen waxuuna ku dheeraaday waxyaabihii u qabsoomay muddadii uu joogay golaha deegaanka degmada Burco wallahi horta ilaahay amarkiisa marka hore sababa بعدين دولة أحمد محمد سيلاني ودولة عن أورانكرنا ودولة دي هرمارك أو سومالان اللي هي لو عتن كاس النودي شرتي ودولة دي هرمارك على أورانكرا مركا أمريكا إلهي مركا لقي مع دولة وشيء ويسوافقين بعد مدة إن السبب وياهي شيء كوباد أوربا أوركا كهريب وهجانكي سليه هبالي de cidda wadanka maanta ka shaqeynaysa ama madaxda waa waa Siilaanyo isaguna waa qof horumarka Ilaahay subhanahu wa ta'ala u saqray mid wata oo de waxa la daba socdaa himilada madaxweynaha qaranka Soomaaliland baa la daba socdaa oo mid wata talabaadna waxa weeye de golaha deegaanka degmada Burco iyo dadaalka ay ugu jiraan ama kama yarahan dadaalka aan ugu jiro horumarka degmada Burco ba sababta labaadna way noqonaysaa waxa lagu kabayaa iyadana oo meesha aan laga saareynin dadweynaha degmada Burco oo hadii jeer horumarka degmada aad noogala shaqeeya hadii ay tahay shirkadaha gaarka loo leeyahay de sabab bay u yihiin in Burco maanta inta 26 sanadood ee Soomaaliland jirtay ka qabsoontay iyo inta maanta 40 sanadood aan joognay qabsoontay waxa la oran karaa waxa badan inta 4 sanadood aan joognay qabsoontay waa badan baa la oran karaa marka 4 hal oo iswaafaqay ba u sabab ah in maartay Burco hore u marto Soomaalida waxay ku maamulada hadii Ilaahay geel kula damco dadkiisu ku siiyo marka Ilaahay xoolo kula damco dadkii ku celin lahay kala shaqeyn lahaa ayaa lagu siiyo marka maanta degmada Burco horumarka Ilaahay la damcay dadkii hore u marin lahaa hadii madaxweyne noqoto golaha deegaanka noqoto hadii shacabka iyo iskaashitooyinka noqoto ugu dambeyntiina mar maayarka wax laga weydiiyay aragtidiisa ku aadan dib u dhac ku yimaada doorashada madaxtooyada dalka waxa uu ku jawaabay horta marka hore abaarna way jirtaa doorashada waqtigeedina rag wax buu iska yiri ama commission ha ahaato ama saddex xisbi ha ahaato ama dawladda ha ahaato waxba la iskaga ogaa 28 bisha March in doorashadaas dhacdaaba la iskaga ogaa wali wax kororsiimay iyo bedel ilaahay ma inaan maqal arrinkaasina rag buu u yaala oo Ilaahay subhanahu wa ta'ala de rag buu damaanada hawshaas saaray inagu taynu maartay de ka hadlaan waxa weeyeen ra'yi maxay kula tahay hadii wax la inaga weydiiyo laakiin mas'uuliyadu cid bay saarantahay Maxamuud Cabdiraxmaan Xirsi Maxamuud Fantastic telefishinka caalamiga waa bari magaalada Burco